الدولة ugu sareeyo ninka la yiraahdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud mas'uuliyad baa ka saalan waraaciyada maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha markuu hortago oo weydiinayo maalinta aakhira dadka lagu cadaaba cid lagu cadaabana ma aha waa gudoomiyaha degmada xamarweynka bilaabanaysa waxa gudoomiyaha gobolka banaadir ku xigta Cabdulqaadir Siidow aabbo xoogiisa iyo xirfadiisa ku shaqaysan jiray balse ay xaaladuhu ku xumaadeen ayaa isaga iyo caruurtiisa iminka baylaha ku dhax ah magaalada Muqdisho waxa ay sheegayaan dadka ay subax kasta marinka u tahay wadadan oo ku taala degmada Xamarweyne inay muddo bila ah ku arkayeen aabahan iyo ilmihiisa oo fadhiya darbigan waxyaabaha ay ka naxeena ay tahay inuu iska fadhiyo oo uusan cidna gacanta u taaganayn qofkii isagu wax u garta ma ahane Abba Cabdulqaadir Siidow ayaa sheegay in uu ku shaqaysan jiray mooto balse shil uu galay uu uga jabay garabka ilaa feeraha shaqadii iyo qaraabkii ilmaha markii uu ka fariistayna ay xaaskiisii ka dhuumatay Siidow ayaa sheegay inuu deganaa kaam ku yeelata beelaha Sheekh Ibraahim ilmahana uu u waayay cid uu uga soo tago sidaas daraadeedna ay duruuftu ku qasabtay inuu magaalada soo dhax galo si ay u qabtaan indhaha walaalaha Soomaaliyeed anu waxaan xanuunsanahay waa ii jeedaa feertaan allahay kalxanta waa ka jabanahay ma shaqay karo islaanta waa iga carartay waa iska dhibaataysan hataa meel aan seexanna ma haysano walaalaha muxsiniinta waxaan ka rabaa inay na caawiyaan bal waxaad ka warantaa xagee degantii iga horkeen meel ayaan degannahay iga horkeen oo waxay ka tirsan tahay tabeelaha waayahay marka ilmaha hooyadood maxay uga tagtay ilmaha ana xanuunsadii oo jabay xagee ka jabtay kalxantaanaan ka jabanayo iyo feertaan moota ilaga doonti kadib marka maadaama aad shaqay weysa saasay ku tagtay maxaa awal qaban jirtay ani mootaan ku shaqaynaya mootada noocee ah faycom moota faycom aan ku shaqaynaya maadaa iska lahaa mootadii aawo mootadu waa la gaday hebray bacday waa jabtay waa la gaday marka ilmaha hooyadood intaan leme ku dhashay mise saddexdaan waay labana waa naga dhimatay waa iska dhuumatay laakiin daruuf way jirtaa dadka Soomaaliyeed dhan bay haysataa sidee yani hooyadii saddexdaan ilmood lagu hoos qaaday oo uga tahay والله أمر إلهي ويابنا أنا غلفتين وكا عنقا عفر بلاد وجرى بقي كتجيس عفر بلاد وجرى يا حتى لما وجرى 6 سنة وجرى وكا وياي مركا dad kale oo ehel ah oo bal shaqooyinka aad qabatay ilmihii ka reebay ilmo weydi ma hay intukum hay wax ii jooga bala amraane وكا وياي مركا hadda ummadda Soomaaliyeed hadii ay ku caawiyaan maxaad isleedahay waa qabsan kartaa sidee baad u noolaan kartaa waa shaqaysanaa wallahi darawal waa ay laftay kooko maqaay waa furan karaa wax walba waa qaban karaa dhowr shaqo aqaana caruurta oo laftigooda aan la sheekaystay ayaa dareensan xaaladda haysata iyaga iyo aabahood waxayna sheegayaan in guriga oo aabahood ay ku sii sugaan si ugu soo qaraabo ay uga fiican tahay inay u soo raacaan magaalada maadaama aysan ismaamuli karin waxay cunaana aysan u oolin guriga hooyo aawe hooyo waa nagtay goorme ma dhaweyn ma dhaweyna wallaahi intaas yaa idin haayay aye guriga maxaa u joogi weysa idinka aabe dad waaweynatiin aaba meelaha ka soo xariiftame dadjaajaab joogwaan aye magacaadeen caaso ya caasho haye meeqsanaa jirtaa haye hooyo goormee tagtay inta iyo xagiyaa fiican wallaahi haye waxa uu fadhiyaa Xamarweyne gaar ahaan nawaaxiga gurigii hore ee hooyooyinka ama meel u dhow beerta nabadda dhalinyaro bajaaj ka haysa oo maalin kasta halkan ku mara ayaa ila soo xiriiray oo ii sheegay in aabe runtii aad u dhiban oo ilmo badan haysta uu darbi fadhiyo sidaas daraadeed walaalayaal annaga ilmaheena guryahay noo joogaan alxamdulillah ilaahay noo wada barakeeyo nolosheena waa ku faraxsannahay dadka waalidka ah oo aan ka mid ahay ayaana dareemi karaa xanuunkan in ilmo yara laami hanfi iyo dabayl iyo kulayl iyo gaajo ay ka jirto loo soo qaado kolley aabahana wax uu doortay oo dooqiisa ma ahane duruufta ku kaliftay
marka insha Allah lambarka shaashada ugu qoran insha Allah isaga wata la xiriira soo caawiya u duceeya wixii aad u awoodaan insha Allah billahi kariim